بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا ورئيسي خاصة aan la yeelanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waraysigaasi oo dhinacyo kala duwan taabanaya gaar ahaan xilligan xasaasiyadaha jira ayuu koobaya waraysigani madaxweyne salaamu calaykum ku soo dhawow waraysiga waxaan marka hore jeclaan lahaa madaxweyne inaad warbixin kooban naga siiso isfahamkii heshiis ee idin dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya. bismillah heshiiska dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya wuxuu ahaa heshiis ku saabsan danaha labada dal madaxweyne kasta danta dalkiisa ayuu adeega waad ogtahay Itoobiya waa dal aan bad lahayn dadka ugu tirada ku nool yihiin Geeska Afrika dhaqaalihiisu aad u korayo sidaa darteed waan ognahay inay muddo ku taamisay inay hesho degan Soomaaliland muddo dhowr iyo 30 sanadood waxaynu raadinaynay ictiraaf markii aanu wada hadalnay isaguna bad buu baahday ana ictiraaf taasay ku fadhidaa heshiiska isfahamka in ciidankooda badda la siiyo saldhig xeebta oo badda ah oo degaan dowladda Itoobiya ay noqotay tii u horeysay ee Soomaaliland ictiraafta labadaasina ay mar wada dhacaan heshiiska marka la dhameeyo labada qodob baa soo ku saxan wixii kale waa iskaashi dhinacyo badan dhaqaale nabadgeliyo maxaan ku raadaba dabeecadan adkaatay maartay deegaanka kala cibradan isbedeshay iyo wixii la mid ah way ku shaqeeyaan wixii buuq ka dhacay ay ka abuurtay dowladda xamarra waad maqlaysay taas ku saabsan dowladda Muqdisho waxa ay sheegtay in iyagu ay xukumaan badaha Soomaaliland oo dhan arinta madaxweyne maxad ka leedahay arinta waxaan ka qabaa adduunka oo ogeeyay ilaa 1990kii markii dowladdii lixdii lagu midoobay ay duntay Soomaaliland gaar bay dowladda u dhistay iyagoo toodi gaar bay u dhisteen marka inta xisku ma jiraan dowladooda waa parliamentary inagu waxaan nahay presidential madaxweynaha laba baarlamaan kala gaar ah leeyahay laba dastuur baynu kala leeyahay adduunyada kala mucaamilada marka meel ay ka soo gali karaan ma jirto laakiin bari waa la bidoobay oo anagu adduunka ictiraafay inta adduunka way ka iibiyaa laakiin shaqo kuma laha mala xoog ku hadana maanta ma haya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa isku aragteen Djibouti ka hor intii aydan Itoobiya heshiiska gelin waxa lagu maqaalaa madaxweyne Xasan Sheekh in uu ogolaa laba dal oo 60kii midoobay inaynu ahayn arinta maxaa ka jira taariikhda cilmidiidu isaga ma qof hore uu ogi taariikh dhacday laakiin isagoo wuxuu taagay waa si midoobo kii ma lahaanay teena waxaan leeyahay waa tii duntay 1990kii aan badhan dhaqaaqay marka waa taas dowladda Masar waxay jeedisay hadalahan jawaada waliba madaxweynaheeda Siisi iyo jaamacadda Carabtuba sidee bay u saameynaysaa Soomaaliland arimahaasi horta golaha Carabtuna qaraar soo saaray oo ku taageerayo Siisina waan daafacay xuduudaha Soomaaliya laba qodob horta midnimadan ay arad xuduudaha Soomaaliyeed iyo qaranimada ay sheegayaan labada qaraarba haddii si sharciyan loo eego waa kuwii dhammaantood waxay ogyihiin oo xeerka Afrika Union ku fadhiya cidina og tahay inay Soomaaliland ka mid tahay dalalka qura dalalka intooda badan ee ku fadhiya xuduudihii isticmaalka tagay oo Afrika Union ku dhisay oo Masar ka mid tahay kuwa saxay iyo meelihii wareey markii la asaasay arinta abaabulay dowladda Carabada markaa wixii xoraha oo yaraaba tilada markaa yaraydna way ogyihiin marka waxa weydiin leh xuduudda la daafacaya Soomaaliya waati tan koonfurta eegno Ethiopia iyo dunka qooq marka ka bilowdo ilaa xadka Kenya
ee Soomaaliya iyo Talyaaniga iyo Itoobiya u dhaxeeya caalami maaha lagu heshiin oo inta loo kala xadeeyay coordinator caalamiga ay ku heshiisiin maaha marka horta marka hore xuduudii daafacayaan waa tee hadal baa ka taagan oo ma cadeen hadal duloosi ugu laba jimcada carabta ka dhaxaysa carabta ay ku kulanto oo intaas oo dawladeed intay dagaal ka fog u soo qashaareeyay waa daafacayna war Falastiin wax ku dhacay wax ka taraa eegto taala kasiir waxaan Europa sii deyso ee South Africa geysay maxkamadda sare dawladaha Carabeed xataa waxay kari waayeen inta South Africa konton dheeraad kale oo islaamna way shareero iyagoo inta way ku dhici waayeen marka talo awoodda la leeyahay waa lagu soo gurmanaya xuduudaha Soomaaliya wax himeen ku jiraan Soomaaliland maxadkeeda Ingiriiska ka hadlayaan ka Talyaaniga ka hadlayaan ilaa way og yihiin inay duway midowga komisaasha kale kala tagay way ka warayaan iyaga maalgaliyo heshiisiyo u taag waayay marka haddii xagga ciidan laga eegana Sisi Rafax raashin waxa ka dhacaya ayaa u baahan hel Soomaalida iyo Somaliland wixii ka dhaxeeyana iyaga dhaxtaala marka waxaan u maleynayaa ereygaasi waa iska dee waa faanku maxaa leeyahay xoolo ana ciidan ku qabsanay madaxweyne heshiiskii ayaan wali iyo saameyntiisa baan ku guda jirnaa markaan u soo noqono dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland dad badan ayaa tafsiirkiisii aan wali fahmin oo aan doonaya inaad ka dhaadhiciso tusaale ahaan dadka ganacsatadii waxay aaminsan yihiin in ganacsigoodii ay weeqayso arintan Ethiopia oo ay suuqii ay lahaayeen markii hore Ethiopia wixii ay kala soo degayeen dekada Berbera waxa soo dhamay ay ku imanayso waxyeelo arintaas aan doonaya inaad bayaamiso madaxweyne arintaas لنستيسيري موي أنا واحد هناك سلقينا لو كرينا يا عالم كان لو كريه وحنو كرينا سالدقة إذا ما ضبط إثيوبيا بعد مشاركين يو كاستمسكين يد خرجنا ذكرنا دينا عليه تام حاسور حقليات كم شرتو ما نسور حقلي كرتو ومد عقل جري سوا معها وحل حوشينيها heshiiskan ciidamada badda loo galaya ee la isku kaashan la isku dhawaanaya waa in Ethiopia waxay dhoofinaysaa iyo waxay la soo degaysaa ay maraan ka Berbera ee dhisan inta kala ismaayay baashiri halka waa markab iyo wixii markabkoodu bahay wax baa cusra ma iyo arabka soo degaysaa ma jirto marka arintaa waxaan maleeyaa waa qolada diidawrkeedu ma soo gaaray way caddahay ta kale qaar baa si dhaafiyay yiraahdo gaal ay ugu soo duuleysay xabashiga u keenay leeyahay oo kristamana qabsanay Ethiopia Soomaalida dad ahaan degani waa tasdaxaatira am xaaladii ormada ka badan waana muslim hadda waa soo qaar qayliyo diidan baa jira Soomaaliya jooga inta uu kordhay waa ogtahay sanadii 20 sano u dambeeyay Soomaaliya degan Ethiopia qaybta ka haday horumartay haday dhaqaale tahay hatta arooska diinta inta masaajidada cusub laga saartay iyo magaalooyinka iyo jigjiga oo haday kuwaas u dhiseen horumareen inaga ciidanka yar halkaas soo dejinaa ayaa ina gaaleynayo oo ina kaxaynay aqliga heera adeer waa aqliga xaq jirka dekado oo dhan maanta geeska Afrika waxay u jaayeen sida loo kala badsanayo ee loogu suuqa u badan looga qaadanayo Ethiopia dekadaha u baahan tahay macaamilka ka socda hawlaha ka socda adeegyada ka socda dekada haday Suudaan tahay haday Kenya tahay haday Soomaaliya tahay haday Tugaalo tahay waxa loo bartamayaa inuu nin walba qaybta weyn ka qaato marka waxa la yahay waxba inooga soo kordhayo weyn wariba oo baaxustara oo soo dhawaasha oo xuduudaha la soo dabciye إلى ذكرت أنت على غير رسن، يتبع رسن. مركوين كلنا ده مثال كانوا كلنا.
heshiiskuna waa taa wax ka tara soo xiyeen madaxweyne heshiiska Itoobiya iyo Somaliland ay wada galeen isfaham ma wuxuu hana qaadayaa iyadoo dawladda Itoobiya ay u aqoonsan tahay dal madax bannaan Somaliland mise ka hor mar baa lagu dhawaaqay heshiiska la wada saxiixay rasmiga ah waxaan ka kale Somaliland oo ictiraafsan oo ku oran wada dal wada qoray thumma isku goob marka anu wareedkiisa qaybta aan helaa marka Somaliland markay aqoonsato ayuu hirgeliyay heshiiskaasi Itoobiya waxay qoos inagoo laba dawladood u saxiixayna idinku laba dawladood وياي هشيسيدي أي سوماليا لي سوماليا وذا قلنا لما تودوا كبحث دولة سوماليا وحي عضو وضع صحيحين كو هشيسين دولة سوماليا هي سوماليلاند وحنا نوش شيء كرتا مدحوينه توي بضايع إن بدنا ميديا ولا يهض تأضوا هذا الرجال لو أنا وحوي باشا إن هو ده سلوه عمره دقاره هذا markii ekaw laga soo wareejinay Soomaaliland Soomaaliya waxay ku saxayaan aynu kala soo wareegno ekaw inuu aanu qaybsan halkaas Soomaaliland baqdatay cidii markaa joogtay baa tuftay waayo ninka isagu ixtiraaf baa haystay waana la aqoonsay markuu galayana wuxuu ku galayay ana hadhow gobol ka dhiganay isiya horta tiiban ugu la saxnaa qalad baa waana duuf ku dhaca mar walba kan halkaay سيف عم بيقول فايستنا وحنا محد قول باته وحنا كسي قال ما وحنا كصدر مخ وده حكم يسكتون وبكسي أتكي وحكم لها يينان دقها أما قرشة شهور مركة أما عالم كانوا تاجروا أما تجارتين وزنوا تاجر سنو إنه درك كور مرينه ينعرق على ذي توادك هذا ترمك جبتك كي كوري SDF كمشروع عيرة إلى هذا الدردو وحوي كسر ريال الصومال يلا هو يهكسد هاي وحده هلو معمول عيل هذين توقف كساري ورقد كقراء عالم كل دري وقبل كمية هلاهم وحكمية صد السنوات وحبر الشهر قال كي صومال السيو أو كمان كل أرض قاعدة هل مر أي سؤال لا تحكيش تروي أحمد يوسف على كهاين وزير كواح برشة أيام مر مصر طبعا ما يهان كل ترو أيام ليسي عارب كل كورس بحيا يقول كستو وحيسا ثم قع سواد وقال بدل لقى معي وحكمه لقاره بانكا أدوك هرمرت الصوماليلاند هي الصومالي لو صادري أو يجي لقوا سوا هجاتي كيو هري صدقت هول مريان وكوي ديدي إن الصوماليلاند سيا بينها وزير مرد رجل مروي أو أي رهاية وإن أو قلادان إن بانك لحق مقصك قطان كانوا وندينات مالتي أي بيتي واحد أيام كنا واحد على درو ساسك صبح تمركها وحي لو وضع عليه يحرق هذا حكم سعودار سؤال واحد هذا نكها قوسنا إسيا قوس نكها أفضل حوار بين كل شيء صار تجهيز لك شاء يسوي قرنما يستيعوا عدتها قال بكس عن مايا مركها تصوير سوقه وحي هايدنا يو واحد رايك هذا كشرة ده حسن بابوتشي مك مران هو مرو هين وابن سوغر لهاي تقول يا كان واحد كان عاي سؤال بلا اعتراف قريب كحجة وانا كسمين دمات waa ku isku raacay marka wax laga seegtaa kuma jiro inta badan 850 kilomitir oo badda Soomaaliland ay maamusho waa nabadgelyo marka laga reebay imka shaqooyinkan xuutiyiinta ee baabul mandab soo kordhay muddooyinkan dambe ilaa iyo muddadii Soomaaliland ay jirtay baddaasi wax burcadbadeeda iyo wax shaqaaqay kama jirin Soomaaliyana way sheegataa badda sidii isku qabanaysa waxay isku qabanayaan baddan Soomaaliland iyo Soomaaliland qarnadeeda waa tii xamar lala galay midnimo
كوي لحدك بريانا شرع لما كان قرن ده تشبه وترتور عليه ولا البالس markii ay dunteen Soomaaliya gaar u xudusatana Soomaaliya waxa tirmay midnimadeedu ba jirta ilaa taa la baabiyo oo laba qaran ay soo aqoonsano de caalamku imka muxuu raacay meel soo qaadayna soo iyagii Itoobiya loo dhaxaadiyo de mashkilada Itoobiya iyaga mar xataalo mashkilada Itoobiya iyo xamar de mar xataalo Xasan ana ictiraafsan qodadana waa jeebka igu jira ama de adduunka la cararaya laakiin isla wuu ogyahay halkan mana bedeli karo mana iman karo runtii waxay de halkan ka talina sharciyan iyo برايت كلبا marka intuu xasan deesito ama ninka xamar jooleeyay ana midooda la ictiraafsay timbar ku jiray marka waa inta iyo la tara waa la isku qabsaday caalamka madaxweyne baarlamaanka waxa taagnayd xasaasiyad la xiriirta arinta golayaasha sharci dejinta iyo xeerkii ay soo gudbiyeen khaasatan golaha wakiilada taasoo mucaaradka iyo xubno garyaqaani ay leeyihiin madaxweynuhu isagaasi badheer u soo celiyay xeerkaasi oo diidan arinta ka war arinta horta waxa ka dhaxaysa labada gole marka la soo koobo sababtu waxa weeye baarlamaankeenu marka la waa aqal qura horta mar oo waa sharci dejinta legislative waana baarlamaankeenu wuxuu qaybsamaa laba aqal ka sare iyo ka hoose ka sare waa guurtiisa dastuurkan protocolka ka hoosena waa wakiilada labadu markay soo yimaadaan waxa gudoomiyaha guurtiisa marka gudoomiyaha guurtiisa laba taasir weey marna waa gudoomiyaha baarlamaanka oo labada aqal marna waa gudoomiyaha guurtiisa sharci oo dhamay wuxuu soo maraa 3 jaro cid soo curisa oo u badan golaha fulinta ama xukuumadda in uu golaha dhexdiisa isagu ka soo curiyo ama wakiilada ha noqoto ama gursi ha noqoto cidda curisay waxa uu dirtaa labadii golo kale maraysa xeer baan oo curinay golaha wakiilada loo diray golaha wakiilada uu eegaya wuxuu dirayaa golaha gursiga uu ku soo celinaya haddii heshiisku noqdaan way soo gudbinaya ana waxaan eegayaa inuu dastuurka waafaqsan haddii aanu dastuurka waafaqsan waan ku celinaya hadday labada golo oo wada jira baarlamaanku ay ka badan 2/3 saddex meelood oo laba haday ku soo codeeyaan ma celin karo ee hadii aan arkay inuu qaldan yahay madaxweynuhu wuxuu diri karaa maxkamadda haddana ordo disorg islaamka kaas sheegay xeerkan imika waxa soo gudbiyay golaha wakiilada anigoo aan wari ka jawaabana ka fiirsanaya shalay soo eegay waxay warqad ka timid gudoomiyaha golaha baarlamaanka golihii sare ay warqad ka timid oranaysa ma dhamaystira jarjarada sharciyo mar lahaaye noo soo celi waxa soo diray warqada gudoomiyaha gurtiisa oo yiri sharcigaasi muu dhamaysan jarjartii sharciyo mar lahaaye soo celi waanu celi dood waxa dhaxtaa markaa labada gole ayay dhaxtaa sharciga ay ku murmayaan waa sax inaan gudbina naga xaq lahayn iyo meedaan lahayn waxa ka soo dhawaato iyagoo wada socda oo ku heshiis hay keena haduu waafaqsan yahay oo dastuurka waafaqsan waa sii deynay haddaan sii deey waa kor aad ku noqonaya sharci waxa dadka lagu jahwareeriyo iyo wax lagu qabin dama marka dooda dhex taala labada gole loo daayay anu wali waan dambeeya qolada aniga wali soo turturaysa ee uu soo celiyo gardaray hay sugaa horta labada gol soo dhameeyaan haday labadoodu isku soo raacaan waa 140 soo qof afriso waa 2/3 marka soo raftaan ayay wali aan xaq u leeyahay hubiyo marka halkaas maraysa maxaa kolka marka keenay labada gol hay isku joogaan
ayagu ha isu baxaan ha isu kitaab daydaan dee xal haynoo keenaan madaxweyne sanadkan dabeeqadiisa waxaa qorshaysan in dalka doorasho ay ka dhacdo dad badanna waxay yidhaahdaan madaxweynuhu uu sii muddo dheeraysanayaa ma ogolo doorashadu inay qabsanto isagaa ka cagajiidaya adiguna musharax baad ahayd shirkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye arrintaa maxaad ka leedahay dee waxaa ka leedahay ma maqshaasha geera intay cabaada qolada sidaa leh waa qolada iyagu dabada haya mar walba sharciga daahinaya ayaa ku marorsoonaya waa la kororsanaya waa la ereysanaya horta sharcigan sidii iminka ogolaanka kaga soo noqday guurtida mabaan lahayn way taabanayaan qoladan mucaaridka u badan laba xisbiyi urradii waa la taabanaya ismaan lahayn waayo mucaaridku 2 sano waxay ku dagaalamayeen oo mudaharaado u keeneen oo dad ku dhintay oo waxaana buuqa loo sameeyey oo odayaashu soo dhex galeen waa buuqi mucaaridka waxaana ka dagaalamayeen xisbiya la furay ururada la furay sharciga ka dagaalamayeen oo sharcigu jiray inta sano mar la furo odayaashii sharciga soo farageliyey ee yidhi waa fooq alqaanuun dadta laga raacaya waxay xukumeen in 3 xisbiya hore qura ay tartamaan markaa xisbiyada mucaaradka haddee sacabkana tuwaan baahay ilatooda loo xukumay golihii baarlamaanka wakiilaha sii daayey guurtiduu tegey way u soo ogolaaday way ka reebeen ururadii markaa inay keenaan u baahay markaasaa la ogaan lahaa inaan diidayo inaan hore ka saxeeyo sacabiyo tukanaan ku sheegay aan qorsoodo lahayn labada xisbiya mucaaradka ah ee imika waxaan horshada wada soo maana tartamin sana 17 soo lagama adka maantana waxaan qabaa waa kuwii aan isnaqaanay iyo annagoo tartamayno anugu tartana diyaar baan u ahay haddii laga helana si xaragana wala jiray oo buuq lahayd doorashada haddii laga helana si xaragana oo qaran baan u tiray sanadkan diyaar baan u nahay ayuu soo daa sharciyada 100% maalin dhaaf baysaad soo daaya xagee kolka xisbiyadan horena waa soo arag ku dawada ciyaar boorka iska jafeen way ka dareen tadamana haday ku guuleystaan boorka waa yar rashid ma jirto laakiin iyagu xisbiga wadani in badan buu ku bixiyay publicly si mujtamacu maqlaaya doorashada sanadka gareega dara waa xala garood ku helaysaa gardara ku helaysid gar maxaad soo doonaysaa dam bidaanka garba qaadanay maanta waa loo soo fasaxay in 3 xisbi qor tartamaan maxay buuqay noo gelinaya taasan kale madaxweyne 2017 ayaa doorasho hal cod iyo hal qof aad ku soo baxday oo aad ku noqotay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xilka madaxweynenimo tan iyo muddadaasi ayaad haysay ma ii sheegi kartaa faraqa u dhaxeeya markii qofka caadiga ah ahayd iyo muddada aad xilka madaxweynenimo haysay saameynta ay leedahay taa qof walba garanaya adan kugu soo celinaya markaad inka dhalinyarada ahayd ee kaliga ahayd ee halka doonta marsi wax doonaysay iyo markii aad guursatay ee xaas yeelatay noloshaada maxay iska bedelay markaad caruur badan dhashay ka war markii ku aagay guursatay ka war saddex noqoto soo xuseen ka abdulaya barka war markay Soomaaliya dham xir ku saartay ay waajibka u tugayso ka sheekha ka caalimka ka aqoonyahanka ka fariidka ka kalluumaysatada ka beer falay kala wataajad marka inta soo dhanay aad dhaxsi taagtay dee waxa fulaya daxweyn bas ka abdulaya hadalkaaga dhaqankaaga go'aankaaga dee wuu culus marka xaas markii loo wadaagta waxa isbedelay marka inta lagu leeyahay waa daba wax badan baad keenaysaa oo adkaysi oo deganaansho oo ka fiirsasho oo ayaa qasab kuwa oo dhaqankaaga wax ka bedelay marka waxa weyn ba jira isbedela madaxweyne muddooyinkan dambe dalka waxa ka jiray xaalado shaqooyin dad badan waxay ku dhaliilayaan adiga muxuu madaxweynuhu isaga dalka ka mas'uulay oo u mideyn waayay dadka Soomaaliland oo dhan arinta ka waran waxa weey qofku inuu saayiraahdo wado
reerka aad markaad aad ugu weyntay carruurtaada haddii cirka jeextu ay waxa oranaya alaabo muxuu cirka u dumay inankaagu intuu wuxuu doona sameeyo qaldo ilmaha yar carruurta ayuu waalidku la yimaadaa waalidku ma wax sax markaas Somaliland waxa jira dad baa laga yaabaa inaan qasuul ahayn dad baa laga yaabaa inaan sabab kale aan saxayn ama awood aan lahayn ka taliya marka wixii dhibaato ee soo baxaba hayraasoo doorta ana kulay la canaanay deewana wax masuuliyad lagu dhiibay marka canaanti waan ka gurmadaa laakiin ka canaanaya waa in ila xaliya ilaasay qayb ku saagaysi marka saal helaya bidna waaba caadi nolosha kamid dal oo dhisan oo inta leeg mar walba raay kala duwan u jiray guushu waxay ku egtahay marka la kala duwanaado ma khilaaf weyn oo dhibaato ka noqonaya mise kala duwanaansho wuxuu noqonayaa ra'yiyaal la isu geeyo inta wanaagsan la soo saaray labada wada inoo yaal marka isku qabano cidlo isku qabata dawladda laga day dimuqraadiga inuu ku taayeen aad aynu wadagan Mareykanka kamid ah Trump oo shalay madaxweyne ahaa oo 6 maxkamad saaray maanta haddana doorashadii iska soo taagan waxa ka dhaxay warkasa haddaba ku ila baarlamaanka ayuu weeray maxkamadda loo saaray maxay sameynayaan khilaafkooda kama dhigayaan colaad dantii guud ugu dumiyo labadii raay baa la isu keenay dhexdooda wax laga soo saaray marka haddii wax kastoo la isku qabto aynu taa raacno waynu guuleysanayna dhibaatooyinka haysta maxaa kamid ah shaqooyin ku badan waa beero waa caadi oo nolol la maro oo ummadda hore soo maro waa laga koraa aqoonta ku xiran faqriga ku xiran marka inaga marka beero la isku dhaco dawladdu u gurmato la isku taga Sheekh Shariif ay diidaan wixii lagu heshiiyey ee haddana isku dhacaan ee ciidankii loo dirana ay la dagaalamaan waa dhibaato cusub hor leh balka aad gurmanaysay ee aad sulxiisa dooraysay waday waan ku maqlay mabaadi'da la isku qabto mabaadi'du waa la isku qabto مثلا marka heshiiska intuu la qaar baaraya waa qalad soo nasiib hadda ma soo la iska dhacay ma Soomaalidu way codaysay shirkii Burcays ku timid distoorka waa la sameeyay cod ka dambeeyay baa la qaaday te hore nagu maro inta foodad bila rabshaa oo isbedela oo intaas madaxweynaha ku dooranaa oo intaas baarlamaanka keen marka waxa loo baahan yahay khilaafka inaan la jabinin danta guud oo naftaade naanada jabin geero marka dadka loo horaayo haday halka gabigeeda jeedo dibisoo tarkii loogu waray maxay cabi marka waxay raayay kala duwayaan la dhaafin xadkiisa inta aniga isla dawladda inta badan qaada qof kale oo faray taas ku shaqeeyay marka aanan la waay maayo laakiin dadka inta laga barko gal way madaxweyne ugu dambeyn waxaan ku siinayaa fariinta dadweynaha maadaama tahay madaxweynihii dalka dadweynaha Somaliland guud ahaan erigad ku oran lahayd ee ku soo gabagabeeyay dooreyskan dadweynaha Somaliland waxaan ku soo gabagabeeyay horta marka hore waa uga mahadnaqaya waa dad adag oo goba waa dad dal jecel oo qable oo xorriyadooda iyo taladooda inay madax banaanaan wax walba horay waad ogtahay marka laga soo bilaabo ilaa koobiyo statekii ilaa maanta dhakhtarka Hargeysa ay xaarxaarista u bilaabay qoladii maanta Cabdullaahi Siciid ugu dilay Kenya ilaa maanta aan joogo waxay naf iyo maal iyo hanti u hore si aan xorriyadooda iyo taladooda cid kale aan uga barso imika gaza 25,000 basaaka ay marayso ma iyadoo inaan gaziira haysan iyo social media wixii yara dhacaba soo dhigaya shirkadda qoraalka xisab waxay diiwaan gelisay state sad afar bilood May June July August in konton kun oo qof oo reer lagu dilay Soomaaliland dawladda Soomaaliyeed qaxootiga inta u baxday ku dhimatayna way ka badantay inta dayaca iyo malaria iyo gaajo iyo rakhsaraad jira way ka sii badantay
ilaahay Soomaaliya suu umay Soomaaliya ugu dhaqataa kuma ku sanadood wixii ay tabcadeen maxaa ugu weyn intellectuality waxa ay qoreen ilaa inta wax soo saaraysaa material ka dhaaf dhaqaale wax kastoo adduunka dahab lacag daaro beero barkado agta la mariyay أحكم أيضا أدرى محورها مركي كمان الدنيا أنا كنت هني عايت مريض دوية مركا هرت واضح السعد دردود واضح كيستا تاسوا شرف dadka gobonada bataa xadsan kara waana xadsanayaan kuwa reer waan ka arkay imika reer hortaasi waa bogaadin halkaas la haynay qarnimada wala ilaalinay ninna loo fursad loo hormay ku xoog weyn ku xoog taas waa mid markaan taa hayno waxa la wixii xirra aynu dhigana aynu ilaashano ku socon muranka mar walba wax dowladda loo dhistay waa muranka xalisho سودانك واحد لسه استمر كانوا حليه عاقلك كلاس يروح أرضية كبار معي هرشوجا يلا ألفه أنت معلكم غير تتمر شو ولا بعمرها مرة دين دورود يصيروا حوي إلى إنه الشرعية إلى علينا كو الدين إلى وتابتانك يكون سوي سنة وحوي أنا كنت رأي حدي أمس خلافنا تورت وين ودت تقول على وين ودت تقول مرة دردو تقولوا لنا وحكوا سيروا كشينا وأنا سيجي لأن يورن تيدا إيجوان لأن سؤال يورن تيدا إيجوانه وارتلوا ترى محلو يلا شرع بالو إيجي مركا بحر قدي هذا بومبوني وحير والبا تكلوا حق جواني معهين ورقم عصب النجوى نويرو صدره المسؤول وصدر سوا ونكره ونعايد waxa la xafto caabis ka oranay hada wax walba oo xeer ba eegin waxa laga yeelay asal waxa jirnay weyno geed hada ka dhacay waa geed qolf ka dhacay marka taasina idaacadaha kor ka baxdo kuwa Soomaalidu ka baxda dadkii ka xishoon jiray waxa laga wada sodog iyo keenad ka qabay sodog hadii halka joogta oo waxa dad ka warsan meesha oday weyn oo sheekha ama loo filay aqli oo waxaan la filisii daayay taasina waa dhaqan xun oo soo horleh dhaqan gubta ma aha malaha waxa waraagsan markaynu dadka public la hadlayno war gartaadana sheego turxaan la'aan taana waa ku arin aad baan ugu mahadnaqayaa inay wadajirkooda ilaaliyaan qarnimadoodana ilaashadaan wixii khilaaf dhexdoodana ay dhamaystaan kaasi waxa waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo waraysigan khaaska ah aan la yeeshay anigoo Xuseen Cabdilaahi Deeqsi waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh